dadka dibadbaxa ka dhigaya bari magaalada Muqdisho waxaana General Indhacadda uu ka hor yimid wararka sheegaya in magaalada bandow la gelinayo isagoo sheegay inaysan jirin haba yaraatee wax cudurdaar ka dhigi kara in markaasi uu baaqdo dibadbaxa golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha dalku ay horay u iclaamiyeen. meesha waxaan ka qabanayaa kormeer baan u imi sikuuradkooda iyo sida uu sugan yahay oo meeshii beri banaanbuxu ka dhacayay marka arrintaas aan u imid haddana waajibaadkayga shaqaanaystaa. waa gartay yaa kuu soo wakiishay oo aad nala wadaagi kartaa inaad halkan timaado indheyntan iyo kormeerkan aad ku samaysa halkan? adeer haddee waxaa ii soo wakiilatay mas-uuliyadda aniga i saaran. saaad ogtihiin dalku dowlad male, baarlamaanka waqtigiisu waa dhammaaday, madaxweyne waqtigiisu waa dhammaaday, xukuumadda waqtigeedu waa dhammaaday, marka dalku dowlad ma leh. marka waxaa i keenay damiirka igu jira ayaana xilka i saaray si loo helo in maaragta la helo in dowlad la ummaddu leedahay oo doorasho ku timaada oo xor oo xalaala si loo helo ayaan u imid maadaama aan dalkan dhiig badan u daadiyey waqti badanna aan geliyey. waxa keliya oon hadda haynaan ay tahay doorashada 4 sano ah. 4taas sano inaysan dib nooga noqon oon helno cid kastoo diidanna aan ka hor nimaadno oon ka diidno mas-uuliyaddanna saaran waa iyadaanay keentay. waa gartay waxaad ii sheegtaa ciidamo dowladeed baa halkan joogay, maamul baa jira dabcan iyagu ma ogyihiin? maamul ma jiro, wax maamula ma jiraan. dalku maamul ma leh. waxaa waaye maamulka jiraahay waa maamul waqtigiisa dhammaaday. anigu waan wasiiraha jira soo moogid. aniga wasiirka jiraahay wasiirkaan ahaa jiroo kale waa, madaxweynaha jiraana madaxweynayaasha jiroo kale ahaa waa. isaga iyo cabdiqaasinka jooga maaragtay baashi masar iyo farmaajo caawa waa isku mid. laba madaxweyne hore waaye wuxuu ku joogaa si sharciga ka baxsan, wixii lagu heshiiye ka baxsan, oo xoog ah oo qalad ah oo gardarro ah iyadaana diidannoon diidaynaa. waa gartay beri banaanbuxu halkan ma ka dhacayaa? bulshada Soomaaliyeed ay ku daawanaysa maxaad u xaqiijin kartaa? halkan waxaan u imid oon u taaganahay inaan u xaqiijiyo inay meeshaanu amni tahay, banaanbaxona uu ka dhacaa banaanbax amniya oo salmiya oo nabadgelya oo dadku shucuurtooda ku muujinayaan meeshaan ka dhacaa. wax dhiba iyo midnana waxaan ugu baaqa dadweyne inaysan samayn. cid kasta oo arrintaas ka hor timaadana iyadaa mas-uuliyaddeeda qaadee. ummaddu wax dastuurkaa na siinaya in dadku ay bannaan baxaan. wixii la qorto lagu heshiiyey ayaa saa ogol. dictatorin maxamed siyaad barraan diidnay, mid ka dambeeyana ma aqbalayno mana yeelino. warar baa sheegaya in suuragal ay tahay in beri subax bandow magaalada la geliyo, banaanbaxuna sidaas uu ku baaqdo. wararkaas ma idin soo gaareen? idinkuse haddii saas ay dhacdo maxaa tillaabo ah oo idin qorshaysa? horta magaalada bandow lama geli karo. wax bandow geli karaana ma jiraan, sababtoo ah dadka rabitaankooda iduma eli karto. kun qori haddii jid lala istaago 10 kun oo qof oo ku soo yacdaa ka adag. dadka waxaan leeyahay xaqaad u leedihiin, soo baxa. 4 askari oo jidtaan iduma eli karto. yacni waa dembiilayaal, waa lala xisaabtamaa. askartana waxaan leeyahay jooga. waad maqlaysaan dalka Maraykanka Donald Trump inuu yidhi maaragta wuxuu samaynayey ciidamadii baa ka hor yimi. xaqa baa laydinkugu leeyahay, garaadaha aad sidataan ummaddaa leh, mushaarka ummaddaana canshar looga qaadaa, maaragtay baawurtiinna ummaddaanaa leh, aad wadataan. farmaajo ma leh, cid kale ma leh, anugu ma lihi, qabiil ma leh, aadinkaa iska leh. ciddaa wixii aad iska lahaydeen rabta inay xoog idinkugu isticmaasho ka hor imaadaan leeyahay si nabada. ugu dambayn ciidanka caawa aad hogaaminaysa halkan jooga ma ciidan adiga ku gaar ah oo General Indhacadda ka amar qaata mise waa ciidan musharaxiinta oo idilka wada yimid? ciidanka halkan jooga waa ciidan Soomaaliyeed una soo baxay inay ummadda Soomaaliyeed oo maaragtay xuquuqdoodii dastuuriga loo diiday inay maaragtay amniga u sugaan. ciidan u soo baxo waaye, waana ciidan Soomaaliyeed, cid iska lehna ma jirto. maxamed cabdi xasan iidle
raadiyaha iyo telefishinka dalsan daljirka dahson